wafdi ballaaran oo ka socda xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaana uu hogaaminayo xogayaha xidhiidhka dowladaha islaamka iyo carabta ee xisbiga mucaaradka ee wadani ambasador axmed aadan dagaal axmed safiina waxaana wafdigani ay soo kormeereen islamarkaana ay indhahooda ku soo arkeen qaabka ay kaadhqaadashadu uga socoto gobolka gabiley. ambasador axmed aadan dagaal axmed safiina xogayaha xidhiidhka dowladaha islaamka iyo carabta ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxaa halkaasi ka jeediyey khudbad ay ku dheehan tahay wadaniyadii waxaanu bulshada gobolka gabiley ugu baaqay inay codkooda siiyaan xisbiga ay u arkaan inuu anfacayo dalka. waxaanu yidhi alxamdulilah rabbilcaalamiin saaka waxaan ku sugannahay gobolka gabiley oonu soo kormeernay waajib qaran oona saaran oonu eegaynay habka ay u socoto kaadhqaadashadu. waxaan u mahad celinaynaa deegaanka degmada gabiley iyo gobolka gabiley iyo mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee dhallinyartan garbahayga taagan ay ka mid yihiin. runaantii gobolkan waxa weeyaan gobolkii wax soo saarka, gobolkii khayraadka, gobol ku filan runaantii haddii la maalgeliyo oo la maalgasho dalku aynu maalgashano Soomaaliland oo dhan ku filan oo gobolka imaka muxuu ahaayay khayraadka ugu badan uu ka soo galo Soomaaliland oo dhan. gobolkan waa gobolada ugu tirada badan leh dadka ugu badani ay iska diiwaan geliyeen oo soo kormeernay. runaantii waxa wali daciifa iqbaalka dadku si u soo jeedaan kaarkoodii u qaadanayaan. waxaanu faraynaa oo ugu baaqaynaa dhammaan shacabka gobolka gabiley iyo gobolka maroodijeex guud ahaan iyo togdheerba inaynu qaadano xaqeena muwaadinimo, kaarkeena muwaadinimo codbixinta waa mustaqbalkii ubadkeena, mustaqbalkii qarankeena. maanta runaantii shaqadaan u soconnaa shaqo xisbiyo kaliya ma aha, waa shaqo qaran. qof kastoo maanta muwaadini waxa saaran waajib qaran baa saaran. annagoo xisbi ka socona komishinkiyo taagan, booliskiyo taagan, shacabkii gacmahooda wadajir bay wax ku qabtaan. maanta waa maalin qaran, qarannimada aynu shaqeynay ilaahay idankii wax qabadkeena koobaad maanta ha noqdo sidii qof kastoo muwaadana uu qaadan lahaa kaadhkiisa oo xaq muwaadinimo ku leeyahay. kaadhkan waxa weeyaan waa keenu ku dooran lahayn madaxweyne qaran oo inoo bedela madaxweyne axmed maxamed siilaanyo. madaxweyne aan ku doorano daacadnimo iyo karti aan ku doorano, aynaan ku dooran qabyaalad, aynaan ku dooran maal, aynaan ku dooran wax kale. waa keen ku dooran leh golo deegaan oo nadiifa oo inoo qabta wax badan inoo qabto magaalada wax badan ka bedela. waa keen ku dooran lahayn baarlamaan xor oo xalaala oo calooshooda aanu shaqeynay qaranka u shaqeeyeen ku dooran lahayn. waajibkaas ayna saaran hakaniyad jabina muwaadiniinta Soomaaliland. waxaan leeyahay haddii dad kuwii hore naga xumaadeen kuwa fiican oo badan baa iman doona insha Allah taala. hakaniyad jabina kaarkiina qaata oo xaq aad leedahay, muwaadin baa tahay, xaqaaga dastuuriga hadhow intaad iska kaamileed maanta waxa weeyaan waajib ku saaranay qaada kaarkaaga. muwaadinka reer gabiley ee sharafta badan leh sida quruxda badan leh noogu soo dhaweeyay magaalada gabiley, anaguna waxaan leenahay faraynaa kaarkiina inaad qaadataan. maalinta codkana insha Allah taala halkaad siinaysan waad garanaysaan. damiirku hayna shaqeeyo, qabyaaladu yaanayna shaqeynin, qoladu yaanayna shaqeynin, damiirku hayna shaqeeyo. dalkan anfacaya ayaan insha Allah taala ku shaqeyn doontaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.